dhawaada buto janaal. Kusoo dhawaada buto janaal. Waxaad kusoo dhawaataan buto janaal. Waxaad kusoo dhawaataan buto janaal. Kusoo dhawaataan buto janaal. Kusoo dhawaada buto janaal. Subscribe, like and share. subxaan allah waxaa baraha bulshada si weyn u qabsatay hees ay soo wada qaadeen gabdho Soomaaliyeed iyo wiilal kuwaas oo ku labisan dharka ragga iyo dumarkaba. wiilashani waxay ku labisan yihiin dharka dumarka sida diracyada halka dumarka heesta la qaadayna ay ku labisan yihiin dharka ragga sida khamiisyada. arintani ayaa si xawliya u qabsatay baraha bulshada, dadkuna waxay ka sameeyeen falcelin waxaana u muuqataa in ay tahay dhaqan xumadii abid ugu weyneed ee lagu arko gudaha Soomaaliya. wiilashan iyo gabdhahani ayaa u muuqda kuwa haba yaraatee aan ka baqanaynin in dhaleecan ay kaga timaado bulshada, waxaanad moodaa in muddooyinkii ugu dambeysay ay soo badanaysay dhaqan xumada. tanna waa dhaqan xumadii ugu weyneed abid ee sanadkan aan ku jirno 2020 la arko. waa arrin runtii aad looga fajaco, sidoo kale la yaab ku noqotay dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. arintani ayaa u muuqata in ay haboon tahay in wax laga qabto, sidoo kalena gebi ahaanba wiilashaasi iyo gabdhahaasi loo sameeyo dhaqan celin maadaama ay gebi ahaanba lidi ku tahay diinteena suuban iyo dhaqankeena wanaagsan ee islaamka ah. wiilashan iyo gabdhahani waxaa isweydiin mudan, dad miyaanay ka dambeynin aawe dadkii dhalay? maxaase sababay in diracyo ay soo xidhaan wiilashani halka dumarkana ay kusoo labistaan dharka ragga, kuwaas oo welibana si live ah hees u soo qaadaya baraha bulshadana si ogaana ay u soo gelinayaan. arintani ayaa noqotay mid gebi ahaanba aad looga xumaado, waxaanay dhalisay faallo iyo falcelin ka dhan ah baraha bulshadana. waxaa jirta in ay si xoog u haystaan dadka qaar ayaa aaminsan in arinkani uu yahay mid gebi ahaanba ay doonayaan dhalinyaradani in ay kusoo shacbaxaan, taas oo muddooyinkii ugu dambeysay ay u muuqatay in dadku ay waxyaabaha khaladka ah ay u sameynayaan in ay ku helaan magac iyo sumcad. hase ahaatee arinkani ayaa noqday mid daba furan. muuqaalkan waxaa ka dhex muuqda laba wiil iyo laba gabdhood kuwaas oo maryaha kala bedeshay. wiilashu waxa ay xidhan yihiin dumarka gaar ahaan dharkooda sida diraca, halka dumarkana ay xidhan yihiin khamiisyo iyo cimaamado, kuwaas oo aad moodo in ay gebi ahaanba yihiin kuwa ku faraxsan arinkani. laakiinse arinkani ayaa ah mid gebi ahaanba aad iyo aad falcelintiisu ay u soo badatay, waxaanay bulshada Soomaaliyeed dalbanayaan in dhalinyaradani ee isugu jira wiilasha iyo gabdhaha ee sameynayaan dhaqan xumada in xabsiga loo taxabo loona sameeyo dhaqan celin lana baro diinta, maadaama ay yihiin kuwa diinta ka aradan doonayana in gebi ahaanba diinta iyo karaamada iyo sharafta Soomaalinimo iyo muslimnimo ay meel kaga dhacaan. arintani ayaa u muuqata mid ay aad uga dhiidhiyeen shacabka Soomaaliyeed kuna tilmaameen dhaqan xumo abidtii ugu weyneed. muddooyinkii ugu dambeysay waxaa soo baxayay heeso si dhaqan xun loo soo qaadayo, kuwa jeegada soo xirtay, kuwa is soo qaawiyo. haddana waxayba maraysaa in wiilashu ay soo xidhaan diracyo iyo waxyaabaha ay dumarka ku labistaan, kuwaas oo iska dhigaya dumar. tani ayaa ah mid hadda ku cusub bulshada Soomaaliyeed indhaheeda, waxaanay u muuqataa inay tahay tii abid ugu darneyd. hase ahaatee arinkani waxa uu noqonayaa mid gebi ahaanba fajicisa ku noqday bulshada Soomaaliyeed. dadka qaar ayaa waxay qabaan in gebi ahaanba arinkani uu yahay mid uu ka dambeeyo social media, maadaama social media uu noqday meesha kaliya ee shakhsi kasta uu doonayo in uu ku soo caan baxo. waxaanay arinkani daba socotaa dhowaan muuqaalo kala duwan oo baraha bulshada la soo geliyay, taas oo isugu jiray kuwa gebi ahaanba dhaqan xumo ah. saasina ay tahay haddana waxaa jirta in kuwa sheeganaya fanaaniin sidoo kalena doonaya inay soo heesaan haba yaraatee heesahoodu ay yihiin kuwa aan waxba laga fahmi karin, una muuqda in ay dhaqan xumo faafinayaan ay ahayd mid baraha bulshada haysatay. arinkani uu la mid yahay mid kuwaas oo kale ah, laakiinse arinkani ayaa waxa uu kaga duwan yahay dhaqan xumada aadka u ba'an ee isa soo taraysa, maadaama ragga xidhan dharka dumarka gaar ahaan diraca
halka dumarkanu ay xidhan yihiin khamiisyo iyo cimaamado ay tahay mid aad iyo aad lagu naxo sidoo kalena ay tahay in laga dhiidiyo oo laga hor yimaado arrinka noocan oo kala bulshadanu ay gebi ahaanba ku baaqayso in xabsi loo taxaabo dhalinyaradaasi loona sameeyo dhaqan celin